mid ka mid ah kormeerkii ugu ballaarnaa ee khibrad wadaag ah oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Liibaan mudane Maxamed Daahir ay wehelinayaan maamulada degmooyinka hoos yimaada gobolka Liibaan iyo xafiisyada horumarinta ayaa waxa ka dhacay degmada Dolo oo ka tirsan gobolka Liibaan waxaana booqasho lagu tagay santarka aadka u ballaaran ama xarunta fiiqow oo ka tirsan degmada Dolo isla markaana ka mid ah goobaha loo soo qaato model ahaan ama tusaalayaasha nidaamka dejinta ee dadka xoolo dhaqatada looga dhigayo xoolo dhaqato beerley iyadoo laga faa'iideysanayo biyaha webiga waxaana gudoomiye ku-xigeenka gobolka Liibaan uu ka warbixiyay hawshan kormeerka ah ee khibrad wadaaga ah halkan waxa ku sugan degmooyinka gobolka Liibaan waxay u yimideen sababtay u yimideen waxa weeyaan tamakaro in khibrad degmo waliba degmada kale waxay kaga fiican tahay la iska arko degmada Dolcado waxay ku caan baxday nidaamka dejinta ay aad ugu wanaagsan tahay maadaama ay leedahay laba webi dhul simana ay leedahay sida daraadeed degmada Hudud Mubaarak iyo Filto maadaama ay saddexduba leeyihiin barnaamijka dejinta halkana ay ku sugan yihiin dhamaan inta badan xubnihii kabinetka iyo xubnihii xisbiga waxaan u keenay inay qabalayadan laga barto habka biyaha webiga ay uga faa'iideysteen habka dejinta ay maartay isku xidhayeen waxa iyagu dhankooda ka hadlay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka oo ka warbixiyay iyaguna waxa ay ku arkeen santarkan aadka u ballaaran ee fiiqow waxaan siyaabaha looga faa'iideysto markaan faahfaahiyo waxa weeye halkan waxaan isku keenay 2000 waxaan keenay 270 qoys 2003 2004 waxaan keenay 500 qoys marka qoysaskii 2003 qoysaskan hadda aan joogno 2003 kuwa aad wax uga faa'iideystay mootarada helena 2003 u badan yihiin waxay isku xidhan yihiin 10 qoys 10 ka qoys 10kii qoysba markaa hal mootar bay wada leeyihiin haddaba gobolka Liibaan oo ka mid ah gobollada uu ka socdo nidaamka dejinta ee dadka xoolo dhaqatada looga dhigayo xoolo dhaqato beerley isla markaana ka faa'iideysanaya biyaha webiga ayaa bulshada looga faa'iideeyay xagga dejinta ee santarka fiiqow oo hoos yimaada degmada Dolo ayaa waxay ka warbixiyeen isbedelada ay heleen markaan si koon warbixiyo qaabka dejinta guud ahaan 2003 waxaan dejinay 270 qoys qoyskan hadda aan dhex joogno waa kuwii 2003 kuwii 2004 isku jiraan 2004 waxaan dejinay 500 qoys 2005 waxaan dejinay qorshe wuxuu ahaa 300 qoys laakiin hadda waxaan noo fushay 238 qoys aad arkayseen markaan u gudagalo qaabka beerashada beeraha iyo qaabka dadka kaga faa'iideysteen qaabka isku xireen annaga dadku waxaan isku xireen 10 qoys 10 qoys baa isku leeyahay hal motor hal qof baa mas'uulka 10 qoys halka qoys baa ka marqaataan beeraan qaabkaas ay u soo faa'iideystaan qofka asagana maxay sameeyaan haddana ay leeyihiin halka qof macnuu jiran hal hektar ay leeyihiin halka hektar ay ka wada ku wada faa'iideystaan Ahmed Kaabi